bishaan waxaa la rabaa in la soomo oo walaalahana la wargeliyo. qofka walaalka u sheeg bishaan ha ka faa'iideysto. waa bishii muxaram. alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin. amaa bacdu, ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh oo noo nicmay nicmooyinkiisa aan la soo koobi karin. rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wa amaa binicmati rabbika faxadith. ikhwaani, kelmadu waxay ku saabsan tahay fadliga ay leedahay bishaan muxaram. soomaali waxay u taqaanaa bishaan zako. su-aasha waxaa waaye, maxaa loo soomaa? see loo soomaa? bishaan fadliga uu ku jiro maxaa waaye? intaas waxyar aan taabanayaa. waxaa la rabaa in laga faa'iideysto bishaan. ikhwaani, bishaan waxay ku jirtaa bilihii oo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo qur-aanku uu ku yiri ina ciddata ashuhuuri cinda allahi 12 shahran fi kitaab illah yowma khalaqa asamaawaati waalarda minha 4 xurum. 12 bilood waxaa ugu fadli badan 4 bilood. 4tii ka mid tahay muxaram aa la dhahaa. soomaalina waxay u taqaanaa bishaan zako. sanadka hijriga ahna bilowgiisu waayo oo muslimiinta waxay xisaabsadaan hijriga. waa markii nabiga uu ka hijrooday iyo madiino uu tagay laga soo bilaaba. waa sanadkii hijriga waayo. ilmaheen waxaa xifdisinaa bilaha miilaadiyada january, february, march, abril aa la xifdisiyaa. ilmaha waxaa la rabaa in la xifdisiiyo muxaram, safar, rabiic alawal, rabiic athani. bilaha waxaa la rabaa caruurta in la baro. ayib, su-aasha waxaa waaye, see loo soomaa bishaan? markii horena maxaa la samayn jiray inta oo ramadaanka aan la farid yeelin? quraysh maka markay joogaan way soomi jireen. waajibay ahayday, waajib ahaanay u soomi jireen. markii oo soonka la farad yeelay oo kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun, ayadan markay soo degtay sunnaa laga dhigay. marka sababta loo soomo marka maxaa waaye? nabiga noo sheegay calayhi salaatu wassalaam. nabigeena markuu maka uu ka hijrooday oo madiine uu aaday, markuu madiine uu tagay, nabigu wuxuu arkay qoysaskii meesha deganaa yahuudi oo sooman. markaasuu weydiiyey, war maxaad u soontaan? markaase waxay dhaheen, waa maalintii nabi muuse uu badbaaday fircoona la halaagi waayo, shukran, saasaan u soomnaay dhaheen. markaasuu nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu dhahay, naxnu axaqu bimuusa minkum, anagaa idinkaga habboon, macnaha anagaa raacsan waayo. nabiga markaa soon ayuu amray. qofkii macnaha hataa hore waxa u cunay hadda wixii ka bilaawday waxa la cunayna allah. markaasuu nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu ku daray, sanadka hadda soo socdo hadduu ilaahay i gaarsiiyo 9 iyo 10 soomaa wuri, la asuumana 9 wuri nabiga calayhi salaatu wassalaam. marka nabiga muxaram, safar, rabiic alawal waa la oofsaday. meesha maxaa laga fahmay? in yahuuddaas la khilaafayo oo 2 beri aa la rabaa. marka hadda waxaan u maraynaa waxay ku aadan tahay yowmul jumca. marka maxaa la rabaa? jimca maadaama ay ku aadan tahay, maxaa la rabaa? in jimco iyo ama 9 ama 10. hadday jimco ay ku aado maxaa la rabaa? jimca iyo waxaa la soomaa khamiis. hadday sabti ay ku aadana maxaa waaye? jimca iyo sabti. adiga waxaa la rabaa 10 ama hal ka horeysi ama hal dib ugu dhig. waxaa la rabaa meesha loo socdo waxaa waaye yowmu cashuura. fadligeedana nabiga noo sheegay, sanada lagu dhaafo allah. fursadan marka ikhwaani walaalaha looga faa'iideeyo. dad badana laga yaaba oo waxba aan kala soconin, oo cashuuraba aan la soconin, sanadka hijriga aan la soconin. ilaahay maanta wuxuu na siiyey social media a wax kasta lagu gudbiyaa. dad badana hadda hijrigaba aan la soconin. marka waxaa la rabaa dadka walaalaha ah iyo idinka fakanin, hala soomo. sanadkan waxaa laga yaabaa kii kugu dambeeyay inuu noqdo oo ilaahay ku oofsado. naftaan meel la soo joogo lama yaqaan. mowtul fajaa way badatay. nin hadda kaa tagay leeyahay hebel wuu dhintay aa lagu leeyahay. marka waxaa laga yaabaa fursadan ka faa'iideyso. fursadan yaa la dayicin. walaalahana ha loo sheego, falyatanaafasil mutanaafisun. marka ikhwaani, marka intaasaan rabay inaan idinla wadaago oo bishaan oo muxaram ah si oo looga faa'iideysto walaalaha. aad ayaad u mahadsantihiin. صلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.